السلام الله عليكم وانا ويحيى ناصر عبد الله iyo barnaamijkeeni jamciye jahwareer kaasaynu qorshiisu haynaynu kaga warano qodobo ama barnaamijyo ay tahay maanta ka bulshada Soomaaliyeed inaynu ku baraarugsanaano ama aynu ka wada sheekaysano hadoo Allah weyna waxaad ku maanta waxaynu ka hadlaynaa barnaamij sidaad mawduuca ku soo harkayseen magaciisa aynu niri ma guuleysto ama yani ma sameeyo waxa la abuura qof aan aajil u ahayn yani haddaad qof aajil atahay waxa macquul ah ama chance kaaga badan aad ku sameyn karayso horumar balse haddaanad ahayn maybe waa yari chance kaaga okay hadaba waa maxay aajisku yani inta aan ku wada sharxin wuxuu aajisku yahay waxaan kugu sheegayaa ama aan rabaa inaan ku wada faahno hal jumlad kadibna aan jumladaas ama aynu seed kala dhigno ama hal oraah okay dadka guuleysta ama saameynta sameeyay dunidani waxay hub culus ahaan ama saanad ka dhigtaan fikirka iyo aajiska balse maanta waagan aan joogno iyo ka dhalinyaro ahaan waxaynu la dagaalanaa ama aynu ka hortagnaa aajiska annagoo kala yani kagala hortaginaa inaynu social media ama laabsalaaxa maanta dhan wadno inaynu aflaan iyo daawano musalsalaad inaynu bannaan iyo kubad iyo muxuu ahaay sheeko aan waxba tarayn aynu ku bixino waqtigeena haddaba maxay yahay farqiga inoo dhexeeya maxay tahay caajisku wuxuu yahay kow su-aasha koowaad su-aasha labaad sidee ay uga faa'iidaysanayeen dadkii yani wax soo saarka ama horumarka ama isbedelka dunidan ku sameeyey inaguna sidee aynu uga faa'iidaysan karnaa maxaa inaga hortaagan inaynu caajis galna ama aynu caajis dareenno maxaynu uga cararaynaa maxaan inoo sahla inaynu ka cararno okay haddaba intaan ku dheeraan caajisku waa maxay caajisku waa dareen aynu dareemayno emptiness ama inaanaynu waxba qabanayn waqtigeeni firaaqo yahay nolosheeni firaaqo tahay kaasoo inoo sheegay inaynu wax samayno ama aynu u dhaqaaqno dhanka iyo inaynu wax tar leh ku qabanno waqtigaas ama inaynu xasilooni yaro gaaban ama degdega aynu ku qabanno sidoo kale kaliya caajisku ma aha in hadduu Allah weyne waxaydka ku idmaayo dareemista ama dareen kaliya ma aha waxa weeye yani fariin ay maskaxdeenu inoo gudbinayso ama inoo sheegayso oo leh waxay tahay yani waa waqti aynu dhexgeli lahayn dunida maalawaalka dunida afkaaraha dunida inaynu inta aynu garanayno iyo intayna aqoonta u leenahay intaynu isku xidhno aynu ka samayn lahayn hadduu Allah weyne waxaydka ku idmaayo afkaara cusub aynu wax ka dhexal abuuri lahayn caajisku waa dareenka kaliya ee inoo sahla inaynu maskaxdeenu ay hesho deganaansho inay maskaxdeenu nasato waynu ognahay muhiimadda ay leedahay inay jirkeenu nasto balse taatu ka badan waxa leh maskaxdeenu inay nasashaa waa aad bay muhiim tahay waagii hore dadkeenu ma isticmaali jirin social media ma jirin maanta waxyaalahan aynu haysano oo dhan taasi waxay dadka u sahlaysay in maanta waxyaalaha maskaxdiisa loo gudbiyo ama macluumaadka ama afkaaraha uu arkaya ama loo gudbinayo maskaxdiisu ay yaraadaan inta yare u gudubtaana ay helaan waqti lagu meelayo lagu kala habeeyo oo ay maskaxdiisu process garayso balse maanta waagan ay nool nahay waxaynu helnay macluumaadka aynu daily u consume garayna ama inoo soo gaara aad bay u badan yihiin tusaale maanta markaad soo kacdo ilaa intaad seexanayso waxa macquul inaad mashquulsan tahay maybe 6-7 hours 4 hours 5 hours in aad ku bixiso social media oo kala kulanto kun fikir oo kala duwan kun macluumaad oo kala duwan macluumaadkaasina waxay u baahan yihiin maskaxdeenu u hesho deganaansho in la kala maaweeleeyo la kala process gareeyo wixii aynu baahanahay aynu ka qaadano wixii kala tuurno waxyaalaha qaar aynu muxuu ahaay maskaxdeenu ay ilowdo marka haddaanaynu waqti helin caajisa oonaynu firaaqahayno inaynu waxba qabanayno wax kale ku mashquulsanayn maskaxdeena way ku adkaanaysaa inay hesho deganaashihii ama xasiloonidii ay u baahnayd iyo nasashadii haddaan isla fahnay muhiimadda uu leeyahay caajisku haddaba iyo firaaqadu sidee bay dadka hore uga faa'iidaysteen dadkii hore ama kuwa haddaba jooga ee adduunyada isbedelka sameeyey isbedelka ku keenay ama saameynta ku leh ama guuleystay sidee bay uga faa'iidaysteen saddex qof baan soo qaadanaynaa
inkastoon saddexduba Soomaali ahayn oon jeclahay inaan jeclaan lahay inaan Soomaali soo qaadano balse dhaatada ama macluumaadka in dadka Soomaalida laga hayo way yartahay marka loo tago loo eego yani cilmiga maskaxiyanka ah waayo dadku si guuleysteen intaa hebel xilligaasoo bilaabay dhaqaale just intaasu keliya ka garanaa aqoon lahayna dadkeena okay qof koowaad Albert Einstein wuu garanaa waa sayniyahan qofkan garanayna maybe dad yar Google karis wada arki doontaa ninkaasi waxaa lagu yaqaanaa inuu in badan ka warrami jiray sida ay yani ay halwada ama kaliya haashuhu ay aad ugu muhiim tahay ninkaas waxaa la sheegay inuu maskaxdiisa yani waqti badan ku bixin jiray kelinimada iyo inuu qol kali ku ahaado isagoo wax kala qabanayn si uu maskaxdiisu ay u ikhtiraacdo ama u keento yani waxyaalo cusub ay yani wax cusub u ikhtiraacdo oo inta aqoon uu leeyahay maaha ay keento aqoon kale oo ay intuu leeyahay ka dhex samayso markay isku dardarto ama wax ka fikirto ay keento wax kale oo cusub qofka labaad waxaa la yiraahdaa J.K. Rowling maybe magaca mastana ma garan anigaba hadda igu horeysay magaceeda laakiin waxay ikhtiraacday ayaan wada garanaynaa waa qoraaga buugga la yiraahdo Harry Potter ama film hadda ku daawatay dhamaanteen film bay ku daawanay inteena u badan yaraantii marka waa qoraaga buugga la yiraahdo Harry Potter oo de filmka buug baa laga sameeyay Harry Potter gabadhaasi J.K. Rowling waxay saarneyd tareen ay ku yimid delay ama dib u dhac yar ku yimid marka waqti ay sugaysay oo ay kali ahayd oo caaji dareemisay ay fikirka sheekadani ku soo dhacday sidii laga wariyay ee sheegtay yani markay fikradaasi timid waxay siisay waqti badan nafteeda oo ay fikradda ku sii rogrogto oo ku sii wado oo yani mala awaalka ugu sii jirto maanta nadda wada garanaa filimkaasi suu macaana ama sheekadaasi ama buuggaasi oo waxa aadka yani waxyaalaha filmaanta cajiibka weeyo ficil sixiro oo malaawaala weeyla ka filmaanta cajiibka bay haayeen daawanay ama yaraan ama weynaan haddii aanay maskaxdeeda waqtigaas siin lahayn ama aanay firaaqada u sii deyn lahayn waxa macquul ahaan lahayd in aanan filimka daawanay dhamaanteen ama inteena u badan qofka saddexaad waxa weeye Steve Jobs waxa weeyaan kulli wala hadaanad garanaynin isaga productkiisa garanaysaa shirkadda Apple ama iPhone dadka baka taqaano wuxuu ahaa maamulihii ugu wanaagsanaa ama ugu muhiimsanaa ee soo mara Steve Jobs waxaa la sheegaa in uu waqti badan ku qaadan jiray haddii Allah weyn waxaad ku yidmaayo inuu sameeyo long walk ama muxuu ahaayey socod dheer uu keli galo socod dheer uu naftiisa la galo la khalwoodo uu mala awaal ku galo oo uu ku fikiro si uu problemska shirkadda u xalliyo iyo si wax cusub u ikhtiraacaba taasina waxay u sahashay maanta shirkadda Apple aynu garanayno inay heerka gaarsiisa magaceeda iyo maamuuskeeda iyo productskeeda iyo magaciisa inay heerka gaarsiiso marka yani waqtiga uu naftiisa siiyey ama maskaxdiisa siiyey inay ku fikirto oo nature-keeda ku samayso ayaa u sahlay waxaasoo dhan okay haddaba haddaynu isla garanay yani siday dadka uga faa'iidaysan jireen ama uga faa'iidaystaan maxaa inaga inoo diiday inaynu ka faa'iidaysano maxaa inaga hortaagan inaynu ka faa'iidaysano boringness-ka ama caajiska maxaa inoo yani iyo sidaynu uga hortegi karaynaa intaanan taa u wada gudagelin waxaan doonay inaan cilmi baadhis yaroo la sameeyo oo aad qosol badan aan idiin sheego waxaa lasoo ururiyay dad baa laisku keenay meel kadib qof walba waxaa la geliyay qolkaasi waa maran yahay waxaa yaala kursi miiskana waxaa u dul saaran badhan yar oo ay ku xidhiidhsan yahay koronto ku xidhiidhsan tahay electric shock ku xidhiidhsan yahay haddaad daawato electric shock baa kugu dhacaya muddada dadka loogu talagalay inay ku jiraan waxay ahayd 6 ilaa 15 daqiiqo yani ilaa 15 daqiiqo muddo inta leeg boqolkiiba 25 dumarka ahi markay ku jireen muddo 6 ilaa 15 daqiiqo badhada way taabteen tawasalka badan leh raggu markay ku jireen 6 ilaa 15 daqiiqo boqolkiiba 67 rag ahi way taabteen boqolkiiba 67 boqolkiiba raggii way taabteen oo korontada ay ka doorbideen inay caajis ku sii jiraan marka yani waxay kuu sheegaysaa bili aadan ahaan yani heerka aynu ka marayno inaynu caajiska necebnahay ama aynu ka cararno ama aanaynu u dulqaadan karaynin
marka waa shay caajisku aad u adag runta marka laga hadlayo waa shay aad u adag laakiin waxaan u baahanahay haddaba waayahay maanta zamaankan aan joogno maxaa inaga hortaaganayno xaaladda caajiska experience karayno maxaa inoo sahlay inaynu ka cararno waxyaalaha inoo sahlaya koowaad waxaa kamid ah uguna muhiimsan uguna weyni waa social media baraha bulshadu yani waqtigeena u badan waa meeshan ku bixino markaan caajis dareeno iyo marka kalaba social media waa seef laba afle waa wax faa'iideen ku jiraan wax khasaareen ku jiraan laakiin mustali waxaan u galnaa inaynu ka helno yani xasilooniyo degdeg waa marka yani waxa weeye madadaalo yaro waqtigayna madadaalinaysa marka waqtigaynu ka baxnana aan meesha si ooleyn oo wax dhamaanaya haddaba social mediaha waxaa tusaalahaan wax ila sawirata ama adigaan ku weydiinayaa kalaaska markaad ku jirto ama aad xiisad ku jirto caajis dareento ama aad meel fadhideed wax sugaysa layn ku jirto tusaalahaan oo kale ama aad cafeteria fadhideed cunay lagu keena sugayso maxaad qabataa what you do sheeko waadan qabnaa dhammaantiin sinu badanaa waa inaynu mobilkeena soo saarano aanu yar iskaroon galayna ama aynu eegno maxaa cusub maxaa halkan ka cusub maxaa tiktok ka cusub maxaa facebook ka cusub maxaa youtube ka cusub maxaa whatsapp ka cusub maxaa snapchat ka cusub maxaa laynoo soo diray laakiin wax bay nagula soo kordhiyaan haddana waqti yani markaba inagoon xataa mararka qaar maskixiyan u joogin arkasa inagoo adoo mobilkaaga la soo baxay oo baarbaaraya yani waa heerka uu social media inoogu dhow yahay waa heerka uu mobilkeenu inoogu dhow yahay ilaa xad ayuu inoo dhow yahay wuxuuna inaga qaadanayaa wax aada u muhiima wuxuu inaga qaadanayaa shay nolosheena haddaynu doonayno inaynu horumar samayno haddaynu doonayno inaynu meeshan taaganahay hore uga sii soconno ka qof iyo ka bulsho ahaanba inaga caawinaya ama inoo sahlaya ayuu inaga qaadanayaa baraheena bulshada ka soomaaliyeedna waa yani I think wax kaloon qiyaas ma jirta aan qorin ahayn qorin weeye wala iblaa qorin weeye runta wanaagsan ahayd social media soomaalida yani fi cumri waqt da'dayda maybe malaha min maalinkan soo gaadhay maalinkan soo gaadhay primary secondary ilaa maanta waxaan sheegi karaa way igu yartaa intaan soomaali wax ku search garaya ama aan daawado content soomaali ah ama wax soo geliyeen soomaali waan daawadaa way jiraan 100 qof waxaan daawadaa yani dadka waxa wanaagsan soo gudbiya waxaan daawadaa waa beri baan daawadaa ogaanshaan daawan jiray aadan sahan baan daawadaa xamdi xuseen baan daawadaa muxuu ahaayey yaa kaloon daawadaa dad badan baan daawadaa dad badan oo wanaagsan waa jiraan laakiin mostly dadkaas waxa joogaan YouTube social media soomaalidu isticmaashaan maanta samaankan la jooga wuxuu u badan yahay waa YouTube iyo TikTok dadka jooga qurin soomaalida TikTok yani maanta haddaad gasho waxa wanaagsan ee Soomaaliyeed ka daawataa way yar tahay waxaad ka daawanaysaa inta badan waa qurin yani waxaan waxba ku soo kordhin inay wax ku sii dhimaan mooyee marka ka dambeysana mar wala waxaan la qabsado waxay imaanaysaa in wax cusub la keeno yani waxba kama faa'iideyno haddana waxaynu ku waayeynaa wax nolosheena aad u muhiimin ku waayeynaa oynu yani as a price ahaan u bixinaynaa marka social mediaha inaynu aada uga digtoonaano oo ku baraarugsanaana aad bay muhiim tahay ma doonay hadda social media inaan aada usii dhex galo oo keliya mawduucan ka hadlayna waxay ahayd fikirka iyo muxuu caajiska mawduuc kalaan jeclahay qodobka social media aad iyo mobilka aad baan u xiiseeya aad baan in badan uga fikira aan isku weydiiya ama aan uga sheekaya ama uga daawado mawduucyadiisa u baadhaa mar kalen ka hadla doonaa balse waynu ku baraarugsanaanaa social media iyo bara bulsho wuxuu inaga qaadanayo yani waxaynu barays ahaan u bixinayno waxaynu ku bedelanayno waa inaynu ogaanaa qiimaha uu leeyahay hadduu allah weyne waxid goyn maayo haddaba haddaynu ku baraarugnay social mediaha iyo yani suuga qayb qaadanaya inaynu weyno waxa inoo muhiimka ah sidaynu uga faa'iidaysan karnaa caajiska oo inagu dhigi karnaa sahay aynu ku dagaal tagno noloshan waa in noloshu iska dagaal waa inaan iska yarina social media muxuu ahaay xasiloonida ama maaweelada degdega waanaynu iska ilaalinaa oo aynu yarayna xataa haddaanan iska ilaalin karaynin
waa inaynu nafteena u ogolaanaa waqti ay khalwo gasho, waqti ay keli noqoto, waqti ay fikirto oo isweydiiso waxaan muxuu dhacayaa, waxaan maxaad u samaynaysaa, yani xaggee noloshaada u socotaa. keliya caajiska ama fikirku maaha in aad wax cusub u samayso. problemska nolosheena haysta xataa markaan u baahanay inaynu xalino waa inaan waqti u helnaa nafteenu ay ku xallin karayso, ka fikiri karto, rogrogi karayso. marka waa yani waa inaynu samaynaa waqti aynu nafteena la sheekaysano. waqtiyada aan ugu jeclay waxaa kamid ah marka aan loonayo waan seexanayaa qasab, laakiin waxaan jeclahay waqtiyada qaar ama habeenada qaar anoon hurdo dareemayn, hurdana iga dhaweyn, inaan seexdo sarirteyda aado. waayo waxaa ku qaadanaya sarirteyda 2 saacadood. anina seexdaan doonaya laakiin waan ogahay inaan seexanayn. maxaa meesha imanaya inaan fikiro. waxaa dhacda marka qaar waan qoslaa, waxaan idhaahdaa malaha kani kuma wanaagsan, waayo waxaan igu soo dhaca intaasoo fikradood, maybe ama business ha ahaato ama wax kale haato, intaasoo fikradood baa igu soo dhacay, intaasoo shay baa igu soo dhacaya. yani waxaasoo fikrada iyo waxaasoo shayna ma qaban karaysid, yani maskaxdaada marka qaar dilaysaa. balse waan jeclahay oo mar badan waan sameeyaa. marka inaad marka qaar waqti u samayso naftaada aad keli ahaato oo la khalwato, iska fikirto oo yani nolol mala awaal iska sheekaysaa waa aad bay muhiim tahay, aad baan inoo caawinaysaa. hadduu alla weyn wax guud maayo. shayga kale muxuu ahaay socodka laftarkiisu aad buu muhiim yahay. waxyaalaha uu ka qayb qaadanaya yani uu kaa caawin karaya. weliba socodku wuxuu kaga wanaagsan yahay markaad inkoo kale qolkaa ka fadhiiso. waxaad arkaysaa wax cusub, hawadaad qaadanaysaa, waad lugeynaysaa, kelina waa tahay. aad bay ku caawinaysaa, degenaansho xataa maskaxiyana bay ku keenaysaa. anugu waqtiyada qaar aan dareemayn maalmaha qaar inaan waxba qaban ama aan isku buuqayo ama ay jiraan problems maskaxiyan oo haysta ama waxaan haystaan ka fikiraya, waa jecla oo banaanka aan baxo iska soo lugaya. maybe habeenada qaar waxaan garanaya 2 habeenimo aan baxo, 10 habeenimo yani aan banaanka aadan iska soo lugayo. aromin yani inaad habeenka baxdaa muhiim ah, laakiin wax ka wadaa un inaad lugayso ood keli lugaysaa aad bay ku anfacaysaa iyada laftirkeedu. marka social media waa inaynu ka digtoonaano. caajiskuna waa wax inaga muhiim waa inaynu siino janiska ama ay waqtiga ay maskaxdeenu ku fikirayso si aynu u helno problemskeena xal ugu helno, aynu wax cusub u ikhtiraacno, nolosheena u wanaajino, wax cusubna ugu soo darno, horumarna u samayno. mawduucan waxaan jeclayna intaa kusoo gabagabayno. mawduucii jimcihii hore aad u dheeraa 40 daqiiqo ahaa, kan maan doonin xataa waqtigan uu gaadhay maybe imika waa 16 daqiiqo 17 daqiiqo, ma doonin waqtiga intaa laginu gaadho, balse whatever. intaasaan kusoo gabagabaynaynaa. muuqaalka haddaad wuxuun ka faa'iiday like garee insha allahu tacaala, channelkan subscribe dheh haddaad ku cusub tahay, haddii kalena aad baad u mahadsan tahay. aad iyo aad baan kuu salaamaya. intaan jimcaha kuxiga ku kulmayno waxaa idinka tegaya salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. fi amaan illah.